Asalaamu calaykum. Maanta muuqaalkani waxaan uga hadli doonaa insha Allah dhacdo qabsatay wiil 2 jir ah oo aabihii isku dayay inuu dab ku dilo. Lyosha waa wiil 16 jir ah, wuxuuna waqtigiisa dhan oo yaraanta ku soo qaatay xarumaha xanaanada caafimaadka ee caalamka kadib markii uu aabihii isku dayay inuu dab ku dilo. Sawir-qaade lagu magacaabo Baffy Volkov ayaa sawirro qaas ah ka soo sameeyay wiilkan. Lyosha wuxuu ka soo jeedaa xaafad ku taalla bariga waddanka Siberia, halkaas oo ay ku badan yihiin dadka saboolka ah iyo kuwa maandooriyaha u isticmaala si xad dhaaf. Sanadka markuu ahaa 2005, xilli lagu guda jiray dabaaldegii sanadka cusub, aabihii oo markaa cabsanaa maandooriye ayaa burjiko dab ah ka holcaysa ku dhex tuuray 2 carruur uu dhalay oo ka mid ahaa Lyosha. Cunugii kale oo 14 bilood jiray ayaa dabka ku geeriyooday. Isla markiiba Lyosha oo xilligaasi 2 sano jir ahaa ayaa ku xigay, laakiin hooyadii ayay u suurta gashay inay ka badbaadiso. Lyosha waxa uu ka gubtay madaxa, gacmaha iyo meelo ka mid ah qaarka hore oo ay ku jiraan sambabada, laakiin noloshii waa ay badbaaday. Lyosha waxaa laga qaaday magaalada Buryatia. Ma aysan haysan hooyadii dhaqaale iyo awood ay ku xanaaneyso caafimaadkiisa, sidaa darteed waxaa la wareegay qoys kale oo degan magaalada Moscow. Wuxuu ku caafimaaday dadaal socday 10 sano. Wuxuu maray qalliino badan oo dhinaca maqaarka ah iyo daweyno khaas ah. Markii ay da'diisu noqotay 16 sano, waxay ahayd xilli uu safaro lagu geeyay ku dhowaad kalbar ka mid ah waddamada dunida, waxaana ka mid ahaa Switzerland, Mareykanka, Jarmalka iyo Faransiiska iyo Lithuania. Meelo badan ayuu yidhi isagoo tirinaya liiska dalalka uu soo maray intii ay daaweynta u socotay. Intaasoo sano kadib, Lyosha muuqaalkiisii weli wuxuu soo jiidanayaa dareenka indhaha. Dabeecadaha la yaabka leh ee uu qabo Lyosha waxaa ka mid ah inuu isku qoslo iyo inuu ku qoslo dunida ku hareeraysan. Ma raadiyo qof oo ku eedeeyo wax uu ku dhacay, kaliya wuxuu ku qanacsan yahay noloshiisa. Fikradaha uu dadka ka aaminsan yahay ayaa la yaabsi ah. Waan jeclahay dabka, aad baan u jeclahay meelaha dabka lagu shido. Waan ogahay dadkii hore u gubtay dabka inay ka cabsadaan, laakiin aniga iima muuqdo wax aan uga baqo dabka. Waxaan ka helaa iftiinkiisa iyo diirimaadkiisa iyo xitaa qoraxdiisa. Markasta waan iska daawan karaa, wax laga argagaxo ma ahan. Dabcan sida uu asiga aaminsan yahay. Lyosha wuxuu isku tilmaamaa nooc ka mid ah shimbiraha oo marka ay dhimanaysa isgubta si ay dambaskaasi mar kale ugu dhalato. Waan u qaab ekahay shimbirahaasi. Wuxuu leeyahay anigoo yar ayaa lii gubay, markii si loo eego aniga qudhayda dambaskaas ayaan ka dhashay mar kale. Dabcan si uu asiga aaminsan yahay maskaxdiisa. Muddooyinkan Lyosha wuxuu ku nool yahay wax uu ka bartaa magaalada Moscow. Wuxuu mar walba la xiriiraa aabihii runta ahaa oo ah kii dabka ku dhex riday, iskuna dayay inuu ku dilo burjiko holcaysa. Haddana sidaasoo ay tahay, Lyosha wuu yaabaa markii ay dadka weydiiyaan inuu aabihii cafiyey iyo in kale. Wuxuu leeyahay cafis maaha ee waa hore ayaan cafiyey. Haddana waa isla sheekaysanaa sida ay dadka caadiga ah u xiriiraan ayaan isla xiriirnaa. Weligay ma nicin aabahay. Waxaa laga yaabaa inuu asaga u haystay inaan ka caraysanahay, laakiin markii aanu kulannay aniguna dib aan ugu laabtay magaalada Buryatia, waan wada sheekaysanay. Wax kasta ayaan u sheegay, haddana warqado ayaan isku dirnaa, ayuu leeyahay Lyosha, si uusan u lumin iska warqabkeena. Baffy Volkov waa sawir-qaade u dhashay Ruushka oo diyaariya muuqaalada iyo dukumiintiyada, wuxuuna ku nool yahay magaalada Moscow. Waana wiilkii Lyosha sawir qaas ah ka soo sameeyay. Muuqaalkiina maanta meesha ayuu ka agyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.